السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال مركز دافع دونك aad ka joogtaan ba waxaanu leenahay jimco wanaagsan kusoo dhawaada. Videogan clipta waxaan ugu talagalay inuu soo duubayaa niman dhalinyaro ah oo caadaystay inay baraha bulshada ku caayaan gabar Soomaaliyeed oo fanaanada oo milga iyo sharafba dadkooda dhan ay leeyihiin inaad iga gaarsiisaan meel walba joogaan. dhalinyaradaasi kaamamka ku cadilan ee saddexdooduba Liibiya soo mareen ee Suudaan markay soo mareen Liibiya soo mareen dhibaatadii soo gaadhay la ogaa. horta qofka bilaadanka markuu dhibaato fara badan soo maro maskaxiyan buu wax u noqdaa. taasi waa taas saddexda dhalinyaradaas waxaan halkan ugu sheegayaa oo wallaahi oo billaahi oo tallaahi weligay saamaan dhaaran in ay ka shanlayn doonaan ay farta dhexda ka qaniini doonaan gabadhaasi 7 cisho ay Facebook ku soo caayaan ee Hodan Cabdiraxmaan. kilibyadoodii waanu haynaa ay duubeen saa igu sii jiro sheer gareeya. هلا والله مقلان soo dhawaada ni horta meeshan la joogo waa Yurub wey. Yurub baa la joogaa, Afrika lama joogo. Yurubna waxa ka jira sharci baa ka jira nidaam. in nimankaas horta sharciga ay bartaan waxayna sharciga ku baranayaan markay ciqaab ku mutaystaan. kaamamkii ku jiraan marka loogu tago dumarkay fadeexadeen kilibtooda la qaado. family-geygii baa Yurub ka buuxa. Hodan Cabdiraxmaan waa citizen Mareykan United States of America way adeer. maaha gabadh Afrika joogta, maaha gabadh meelaha ku dayacan. dadkoogii baa Yurub ka buuxa. magaalooyinka iyo kaamamkaad ku jirtaan bay dadkiigu joogaan. fiidiyooyadaasi waa la hayaa waana loo dirayaa. taa horta taamaanka gashada dacwadii waa la furayaa, way socotaa, nidaamku u socdaa. sababtaad ku soo fadeexadaynaysaan eed ku soo caayaysaan idigaa sheegi doona. sharci Yurub baa jira. facebookan in personal qof shakhsi lagu soo ataago magaciisa lagu soo hadal qaado shuruucda facebooka u yaala waa ka mamnuuc. qofku haddaad wax general ka hadlaso oo siyaasad ka hadlaso oo ku salaamay abti xaraga soo dhaw sheer gareey barnaamijka. haddaad siyaasad ka hadlaso oo wax general ka hadlaso oo nin siyaasi aad leedahay waxa muu qaban ama waxa soo qabtay oo wax la garan kara de oo wax Soomaaliyeed dhan ka hadasho waa caam weey. laakiin in gabadhan shakhsiyadiideed ku dhigtaan iyo nasiibadeeda, horta gabadhan waa gabadh gada buursiye weey. waxay ka soo jeedaa boqortooyada Adalin Bayr bay ka soo jeedaa. halkeed ku noolayd reerkan aad sheegataan, reeraha aad sheegataan ee Facebook doonaysa inaad qasab dadka ku bartaan halkay jireen. bal sir weydii Adalin Bayr markay haysatay geeska Afrika ay madaxa ka qaraacayeen oo yaasheed baa hayna halkay jirtay. hooyadeed waa ayeenanta aabaheed maanu Cabdiraxmaan dheerahayn meena fanaaniintii ummadda Soomaaliyeed ahayn. ma Facebook baad maanta qabiiladiina naga barasanad nagu cabsiinaysaan? no, wax Facebook qabiil lagu barto way ka weyntay Hodan Cabdiraxmaan runaantii. boqortooyo la sheegto afka laga sheegto Facebookna looma baahna, cadayn baa loo baahan inaad miiska soo saarto oo tiraado taa aniga cadayntaydii
waqtigaasaan boqortooyo ahaa magaalada hargeysa meesha qashinka lagu daadiyaad kaga nooshiin aflagaadada waxa u soo jiidaya reerkaa dhan ee suldaan kale ee shariif kale ee nasab kale baraha bulshada ku wada jiraan reerkiisu inamadaa yaryar cid aan reerkoogu balaha bulshada ku jirin ma jirto maalin keliya may odhan waar ka daaya dadka cayda waar gabadha milgaha iyo sharafta ummadda soomaaliyeed lama caayi jirin dumare cay dumarka caydaha laga daayo waar dhaqankeennii waynu baabiinay ka daaya dumarka cayda oo la qaban waayey waa lagu daawanayay si cad oo bareeraa loogu daawanayay markaa waxay taasi timiday dhexlasaa in aad jeelal gashaan jeelal wallaahi bilaahi tallaahi garhkaa ninkuma yaallo haddaan faransiiska iyo dhulkaad ku wada nooshiin iyo sweden iyo dhulkaad joogtaan iyo germany haddaan ligu iman oo cajiladaan lili daba qaadin naabiil alle garhkaasi naag buu ka soo baxay naag taasi waa taa soomaaliya haddaad caadaysateen in baraha bulshada lagu caayo dumarka ay qabiilada kalena dumarkooga ay arkayeen iyadoo la caayayo la jijiidayo lasi qaawan loo fadeexadaynayo tani dib u dhici maysa haddaba dacwaddaasi way socotaa 3 fiidiyoo baa la hayaa 3 fiidiyooba 3 nin baa soo kala duubay way kaydsiin meel walbana way ku jiraan caddaymahaasa la keenayaa hadhow toole adigunbaa ka garbixi doonaa taasi waa mid hodan cabdiraxmaan hooyadeed aamina cabdilaahi waa dadkii heesaha loo qaadi jiray ee loo gebi jiray bay ka mid ahaayeen ee gobtii reawdal run ahaantii heesta waxaynu xasuusinayaa tiraada dibadda iyo gudahaba beeraha la daawado ee dalxiiska loo tago ha ildogsateege dusha nabar ha gaadhsiin ha dagaalin waa gobe dusha nabar ha gaadhsiin ha dagaalin waa gobe hadal doqon magaratanaha ku odhan ma yeeshee aamina cabdilaahi baa loo qaaday heesta waa dadka taariikhda iyo milgaha sharafeed kule ummadda soomaaliyeed weeyi hodan cabdiraxmaan iyo qoyskeygu run ahaantii hadday tahay hoboladii waa beri iyo hadday tahay hobolada maantaba ma aha gabadh si dhayeela intay 3 yar oo dhallinyari u soo galaan iyagoo weliba qabiiladooda afkooga ku hadlaya ay ku aflagaadeeyaan ay ku caayaan run ahaantii waa aad iyo aad baan uga xunnahay qabiilada facebooka la doonaya in dadka lagu baro dadkan waa adaliyaankii dadkani waa siiliciyankii dadkan waa asalkii iyo gobtii ummadda soomaaliyeed waxa ka dhashay intaasoo kun oo brofeseeraaba ka dhashay markaasaad niic nala hoos hordasaan 19 isbaarooyin kusoo caanbaxay iyo boob dhac iyo dil iyo kubsi iyo kac waxaa laga yaabaa qaarkiina kusbigii ku dhasheenba adeer haddaad xishoon weydaan inaga xishoon maayo run ahaantii in badan baanu eegnay in badan baanu eegnay in badan baanu dhegaysanay in badan baanu iska kindhaga marinay in badan baanu iga soconnay laakiin maanta laga bilaabo wax la iska dhaga marinayo oo la eeganayaa ma jirto 3 fiidiyoo waan ku soo celcelinayaa waa la hayaa kaamamkaad ku jirtaanna waa la keenayaa facebookan sharci buu leeyahy yurubtaad joogtaa sharci bay leeday in qof bilaaadana sharaftiisa intaad life soo gashaad kaga dhacdo weliba gender dumar weeye weliba waa gender maaha nin weliba dumarkuna weliba ka sii xag jiraanba yurub marka la joogo ma aha intaad liibiya soo martay adoo kabna laadlaadinay kabna sidan usoo sitay yurubaad iska soo gashid waa inaad shuruucda iyo sharciga iyo nidaamka social mediahaad barataan horta marka hore adeer siyaasaddu waad ka hadli kartaa qof siyaasiya waad dhaliili kartaa xaq baad u leedahay dowlad baad dhaliili kartaa xaq baad u leedahay laakiin gabadh shakhsiya in aad dhaliisho taasi ma aha mid annagu aanu yeelana run ahaantii waa mid furantay ummadda soomaaliyeed waxaanu u sheegaynaa nimanka 3 niman dhallinyarada ah marka dib loogu celiyo halkay ka yimaadeen ayaan hadhow la soo kala caban marka dib loo celiyo ee la qaado la yidhaaho gabadh haysata basaboor maraykana oo walaaladeed iyo dadkeegii iyo ehelkeegii qaraabadeedii yurub ku nool yihiin kaamamkaad ku jirtaanna ay joogaan magaaladaad joogtaanna joogaan cajaladaha la soo qaada maxkamadda la furo ee aayar lagu katiinadee nin walba tuulada ka timid lagu celiyo hadhow soomaaliya ayaan la soo kala caban ku soco maxaad ka leedahay nin inanta daba socda sharafta iyo milgaha ummadda soomaaliyeed kumay jirin in gabadh haweena
toddoba cisho un la caayo oo la yidhaha ilmay sidan samaysay ilmay sidan bal dadkaa maxaad odhan lahay dhallinyaradaas abta horta waxa weeyaan iyo in badan baa ma garanaysaa dadku xishood lagu jiro xishood waxaa dhaa ma jiro haddii xishoonayo siilkii hooyadiin wasa anaga le siilkii hooyadiin wasa adeer intaasoo noo soo xiran anaga waxaa anagoo wasna aad ka sheeganayso ma garat carruurta duuf kale ee ilaa xalay baan labeere ka dhahay ilaa saaga waxa laga soo diriyey muuqaallo kuwa hinfaarayo wargeel jiraa taageeyadaa wasi naagi naagu dhala adiga nin waa la iska dhaar la iska dhaarto anigu dambaba ma soo gelaya haddii raggaa maxkamad la soo taagi waayo qorshahoogiina oo lagu jiraa war waxaan laangabka war adreesaan kusoo diraya imanayo adreeskiyaa kuu soo diraya jarmalka aad sheegayso imo anaa kugu soo dhaweynaya train stationka wallahi anaa kaaga hormanaya anaa weliba saacadda tareenka kugu eegaya halka kasoo tegayso imo haddaad dee aad wax kusoo baxdaad haysataba been nintu kastaa intay cabto bomarka dhala soo qaad hala kala xishooday iyo waa lagu yasiyo waa lagu dhaafi war la isla laaqinayno xaar haddaad soo laaqato halkaa ku xaaran ku sulbanay carruurta waxaan u sheegayaa nimayo dadkan aad caayaysaan waxa weeye waa dad inaga leefal sarreeya dadkan aad caayaysaa waa dad inaga leefal sarreeya dad inagu leefalo maaha dad dhintay oo gebigooduba war qaar baa xalay 5tii subaxnimo annagoo shaqooyinu kalaanabaysaa qarlay fujiga laga soo diriyay waxaan noocaasa baa raba inay dad la xifaltamaan ay dad kuraadaan waxbaana kugu samayn waxbaana kugu waxayna xakay dadkan aad sheegayso taariikh male waa dad nolosha ka dhacay waa dad mataqaana dhalada khamriga la garaada oo badutunimada aad moodo in lagu yiri khamrigu waa biyo samsamka kale ku soo meedha badutunimada gaareen oo magaranaysa meelahan laga soo qabto wadooyinka ku cireeray dadkan ka sheegaysa laakiin wax isleeyahay wax wada nagu dhaafaya والله بالله والله بانكور تاس كاس اللي نيجا شقيا قص بالي نيجا شقيا والله لو دافيا هذا اللي dhaqankii haddii dhaqankii Soomaaliyeed laga tagay oo hablihii la soo caayayo oo la fadeexadaynayo oo la flagaadaynayo oo waxaad aragtaa loo geysanayo war khaliisiin baa jiraba hadda waxaana dadka rag wada moodayso ee wada jaakeedada weyn ma aragtay wada rag ma aha waxaana ka sheekeynayso laga roonayal ma jiro maalin dhexdaas anigoo ka hadlayo leh iskooladan coldoon sheegay waxaan ummadda bilaabankii mataqaanaa dalka Soomaaliya laga qabto dadka walaalaha laga qabto waxa laga qabtaa anagoo baaba qaarkood maxay qaar khaniisdoodii arkay war yarkii wada ay narku wada go'ay oo saaw abaadayaan arkay oo waxaan loo qabanaya Anderson kuba waa buuda hayaa arkay qoliyahaas qoomka Anderson kuba iyo waxa sheeganaya hadii isleeyihiin ay iyo waxan baa inaga xishoonaya war ay baa inaga xishoonin adeer haddaad tamada sheeganaysaa tabar baa laydiga xishoonin fartaad qortaanba wallaahi 7 tallaabo ka hor baan sii qornaa iyadoo daabacaan oo saxan ma garatay bal qabiiladooda halkan la shiri maadaan oo igu yeedh aniga maanta haygala doodaan bal qabiilkooda iyo boqortooyada ku sheegayaan kuwa Amir Nuur adhiga weegi jiray kuwa shalay dud wanaadiga ku Amir Nuur ugu raaci jiray adoonta haba ayaa maanta inay boqortooyadii ila hadla rabo Cusmaaniyiin tahay ila hadla rabo كون نوعس الدون كم ولا قلت المية الدون كان وحول إني شوني أدموسا ونريبرومي تلفون باي سoo qaraacay aad baan niga raali gelinaya ku soco nin waxa weeyeen adeer Soomaali hadii kala xishoon weyday ma aha intaad live soo gashid inaad tiraadid hooyada siilkayga waxa ku samee caynkan sidan taas un baa haya khaniis baa tahay qarac baa tahay waa la sameeyay waxaan tan kalaas waxaan sameysay adeer sheekay ciyaal meeshan looma joogo fataatira lagu ma ciyaarayo warmee mid baan jirtaa rut adeer damay milgaha iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed dumarka in la taabto waa birmageyda weey waa ceeb weey dhaqanka Soomaalida kuma jirto in dumarka la taabto milgahan badad annaga na soo caaya adeer annaga na soo caaya annaga waxa doontaan na soo dhahnay ragaan nahay ciidan caaysaana kala soo caaya laakiin hablaha iyaga inaad soo caydaan annagoo nool adeer laga yeeli maayo kaaga yareen soo tahriibay intuu tahriib ku soo galay Yurub waliba aan sharciga garanayn 3 fiidyo baa la hayaa maxkamad baa lagu tiigsanayaa halkaad ka timiday baa ayr lagu ciliyay inta lagu tinaday
war nasabnimada iyo milgahan ka sheekeynaysa dad bay xun ku tahayba dad bay allergy ku tahayo xanuun ku qaado haddaad sheekada la timaadaan ba anigu waan ma diyaar baan waxaas ma qoro dadkii masaakiinta reer boorama xishoonaya dad moosa aan reer boorami aanu tuulo dila leeyahay baan ka imaday waxaas ma qoro waxaad ka sheekeynaysaan anigu ma qoro u sheeg wallahi anigu ma qoro haddaad waxaan ku iri xadiis soo akhridaan waxaan ku akhrina hadda quraan akhrida wax ku akhrina haddaad sheekada nixda timaadaan waxaan ku gowi qacba la leeyahay ma garat nimankan markaa waxaan wax waqti lagu bixiyaa anu may waxaan u sheegayay mid keliya qodob keliya u soo galay gabar Soomaaliyeed inaan caayo wallahi hooyay mid keliya u soo galay qodobkan u soo galay waxa weeye gabar Soomaaliyeed dib loo caayo inay raggaasi ka xanaaqaan waxay gabdhaha Soomaaliyiin bal tusay hadaba anigu gabar Soomaaliyeed qabiilkii doontaa sheegay sharciga Facebook-na waa lagu barayaa wuxuu yahay Facebook inaad qof personal samcadiisa iyo dignitigiisa iyo sharaftiisa aad ku caydo sharciga Facebook-ga lagu barayaa wuxuu yahay xalay baa arkay salaadii subaxnimo iyo faariyo jaakeedo waan xidho moodo qolo baar laga soo ridayo hadaba ku leeyahay iyagoo xalay caayaba ayaa laga soo diray aniga gulad iyagoo nacaayay aniga gulad maxamed iyagoo xalay nacaayay loo soo diro soo faariy aan waxa ku leeyahay abti niic inta iska diisan raga daatiin wixii raganimada la yimaad weysan hay de gogorada soo xidho siilkooyadii wasa intaad baali soo xidhataan intaad keeshiliyo nigisa soo xidhataan halka niiki orod kalabada ka niikiga deehayn wixii raga dad rabtiina anaga noo yimaada absolutely ninka yare ciidagalaha sheeganaya baan sheegaya isagana ee Francisco ku nool ciidagalow adhow yaan la soo kala caban ninkaasi marka halkiisa loogu tagay maxkamad lagu furo waayo baraha bulshadood ku jirtaan waad ku daawateen inuu gabadheedaasi baraha bulshada ku caayay oo ku jijiday oo wuxuu doono ku yiri annaga dulqaadku naga dhamaaday maxkamad baanan ku furanaa sharci iyo nidaam baanan marinanaa arrimaha social media ciidagale annagu waa dad xigaaliyo aanu leenahay xidid oon habla ka qabno iyaguna habla naga qabaan aan horta afkaasi iguma yeelan maantaan ciidagale ku caay laakiin samaroonka kale ciidagale caayaya ama isaaq caayada aniga waxba igama gelin dooyinqaadna uma yihi anigu ciidagale la yidhahdo adeer nin weyn baa lahay iyo mid samaroon la yidhahdo mid gabooye la yidhahdo habeer gidid mid maan waxba igama gelin anigu qabiil Soomaaliyeed caay maayo sheekadu ninkii qabiil caay xal arkay igu dhareerinayo qabiil caay waran qabiil Soomaaliyeed aan caay maayo shaqadayda laakiin ninka ragnimo sheeganaya halka golaha ragga hay maadaama ragana sida ragga isaga celiya ninka laakiin waxa ku leeyahay de qolyihii kale Anderson Cooper dugsiga abaarsa ka soo qalin jibina de gogoradiisa nigisaantiisa yaa soo qaato waan ku salaamayna dadka kalena Charles Masiniya boqortooyo ku salaamaya aad iyo aad baad maasantay waxa adeer waxaan wax loo dul qaadan kara ma aha in gabadh Soomaaliyeed oo waliba duntii ka soo jeeda adalyaanka ahayd 7 cisho baraha bulshada lagu caayo wado xanuunkeega dhandhamin doontaan saddexdii fiidiyood ku caayseen baa la hayaa haddaad xanuunkeegii qaraarkeega dhandhamin doontaanna wallaahi aan raga hayna garkaas ka xiraya wallaahi oo billaahi oo tallaalka joogtaan shakhsiyaad baa tihiin niman dhalinyaro baa tihiin anigu horta nin weyn baan u soo aflagaadeyn ma yareeriina ama murursada ahaw ama geri ahaw ama ciidagala ahaw u soo aflagaadeyn ma anu reerahaas laakiin waxaan nii sheegayaa in sharciga aad mari doontaan xaqiiqatan oo kilibtiini lahayo maxkamadda la furay faamiligeegii ilmaadeeradeed baa jooga ilmaabtiyaasheed baa jooga walaaladeed baa jooga yuruba kula jooga waxba tareen baa loo raacayaa loo kala marayaa markaa bal halkaad face gabadh dambe oo Soomaaliyeed ku soo caydaan bal arki doonaa muddo yar oo kooban oo nii qabanaya waliba muddo yar oo kooban ma nii qabanaya saddexdiinuba kaan baad ku jirtaan sharci ma haysataan noloshiinii baa cidhiidhiya markaasaad ummadii Soomaaliyeed hablihii Soomaaliyeed aad caayisaan war waxbay ahaan lahayd ba haddaad reerka iyagoo keliya ku ekaanasaan aad caayisaan haddaad annaguna soo caayisaan garbay ahaan lahayd ba adeer markaad wax cabtaan haddaad waalanasaan waa karaamo darro waa in la xakameeyo waan dhalinyaradan meel lagu qabto weeye run ahaantii wax la eegan kara maaha siyaasad adeer ka hadal waxaad ka hadashaa ciddaa doonto ka hadal siyaasi dhaliil cidi kumay diidin laakiin shakhsi gabadha weliba gender way ka sii xag jirtaa Yurub weliba meesha la joogo Afrika maaha ragga iyo dumarku isku midba maahaba dumarka priority leh waad waalantiin waad soo gasheen Yurub waad iska timaadeen fiidiyoyadii Hodan Cabdiraxmaan baa sidan Hodan Cabdiraxmaan baa la hayaa waa la qaadayaa waana la horgeynaya run ahaantii maxkamad baa lagu furayaa kaan baad ku jirtaa lawyer ku dacwoodo ma haysatid dhaqaalaad ku dacwootid ma haysatid bal maxaad samayn doontaa waaye haddii Soomaali hore kaaga hadhi jirtay arrinkan annagu kaaga hadhi mayno wallaahi inaan lagaaga hadhin iyo billaahi tallahi inaad qaraarkayga dhandhamiso bartaad ka timid in lagugu celiyo Afrika
saasay noo hanaysaa soo caytama oo waa khaniis soo dhaha oo waa fiteel soo dhaha oo waa qarac soo dhaha oo waa sida soo dhaha bal waynu eegi doonaa halka la kala maro dhalinyarada gadabuursi baan ugu baaqayaa ee iyaguna baraha bulshada ku jira adeer anagu rag waaweyn oo siyaasad ka hadlaanu nahay run ahaantii qabiilada dee marmar kaftanku waa iska furan yahay waa lala kaftami karaa laakiin hablaha soomaaliyeed in lagu fogaado oo lagu talax tago taasi maaha mid anigu aan yeelano oon dulqaadanana maha wallahi dhalinyarada gadabuursi waxaan leeyahay daadeer sida xirbaha loo soo xirtay u soo xirto soo gala waxaad caayi karasaan iyo waxaad wasi karasaanba was hablaha un ka reeba anuu hablaha niga dardaaraya dhalinyarada gadabuursi ee aadka u xanaaqsan ee aadka u kacsan waxaan leeyahay ilma adeerayaal innaga sharafteena iyo milgaheennu maaha dumar in la caayo waa madnuuc waa xaaraam weeye in wax laga sheego dumarka ama dhalinyaro haw ama nin weyn haw diinteennuna ma banaynayso dhaqankeennuna ma banaynayo laakiin raggaasi sidaad u soo aflagaadinaysaan ood soo caayasaan idigaynii taallaayo dee facebooka u soo gala iyo reerahooga annagu dadkan xidid iyo xigaal baanu nahay ku fogaan mayno ninkaasina waa la qaban waayey 7 cishaa lagu daawaday saddexdaa inamood waa xagga la kala maro hodan cabdiraxmaan iyo gobtu dhashayna waxaan leeyahay in adeer annagaa xaalkaa siinay arrinkaas annagaana sharciga la tiigsanayna run ahaantii dhallinyaradaas fideoyadiina oo la hayaa niman aad maadeertiyiin baana meel la jooga dadkan waa adal imbaayar adeer waa adal yaankii wey adeer waa ifad iyo adal imbaayar berigay abuurnaayeen ee geeska afrika haysteen ay tilinayeen awayaashiin dameerada iyo fardaha ay xidhi jireen dadkii fardaha u meedhi jiray baad haydeen dameerada dadka markaasaad facebook la soo fadhiisanaysaan inaad dadka soo aflagaadaysaan ood qabiilada doonaysaan inaad dadka afka u gelisaan soomaaliyeed xilligaas amxaar baad noqon lahayd haddayna axmed guri kaa dufaacin wallah hablaha waxaan leeyahay soomaaliyeed eedka loo caayayo hodan cabdiraxmaan oo keliya maaha weliba waa in laga damqadaa wax alliyo waxa gabadh facebooka lagu caayayo innagay dambeer xumo inoo tahay ragow waar inag weligeedba raggu waa iscaayi jiro waxba male taasi waa la iscaayaa dee waa okay laakiin in gabadh soomaaliyeed halkan lagu caayo weliba samaroon oo gobtu dhashay ee aqoon-yahankii ummadda soomaaliyeeda oo anuu ree hebel ummaddaad ku caytantaan waa ceeb wey ciidagaluhuna dhaqan iyo sharaf iyo milgowmuu lahaan jirin waxan ciidagaluhu dad waxay ahaayeen asturan dad waxay ahaayeen wanaagsan dad waxay ahaayeen goba dhalinyaradoodu waa la yaqaanaa niman badan oo ciidagala iyo dad badan oo ciidagala gabdhaanu ka qabnaa ciidagalaha waa ninkan ciidagalaha sheeganaya faransiiska ku nool ilma adeerayaalo maad qaban kari weydeen dee hadduu ninku waalan yahay waxaa la yidhi tolkiiba u meyr qabee inaad qabataan soo maaha tolkiibaa u meyr qabaa la yidhi ninka waalan soo maaha waad qaban weydeen maxkamad baa haddaba lagu furayaa yoomul isniintayna bilaamaysaa maxkamaddu waan niisii sheegaya anugu isniinta ayay maxkamaddu furmaysaa magaaladu ka joogaan iyo xaggii ka joogaan saddexdaba oo la garanayaa saddexdaa dhallinyartaa waana laga shaqaynayaa facebook dambe oo gabadh soomaaliyeed kusoo aflagaadeeyaanna dib u dhici mayso dhammaantiin intaasaa nagaga baxay waxaan nii sheegayay nimankaasi inay maxkamadi ku socoto hadday arrinkaas sii soconayaa waanu soconayaa mana istaagayo run ahaantii waanu soconayaa mana istaagayo hawshaasi siday u bilaabeen ayaan annaguna u dhammaystiranaa qorsheegii waa la hayaa 3 fiideo ay gabadha ku caayayeen baa la hayaa iyagoo magaceega saddexan weliba ku celcelinaya weliba ma yaqaanaan miidiyaha sida looga hadlo magacay sheegayaan magacabaad iska sheegaysaa waa la hayaa magacii iyo waxaad ku caayisay gabadha oo lagu hor keenayaa hadhow talowa halkaad la martoon markaan iyo aad baan nii salaamayaa waxaan leeyahay dhallinyaradaa kale ee gadabuursi ee aadka u kacsan iyaguna laafifka soo gelaya hablaha soomaaliyeed ha caayina ma lay laakiin nimankaasi miis waa inaad saartaan qorshaha kale mondaydu furmayaa dacwaddu furmasaa nin walba oo la garanaya magaaladu joogo iyo goobta ku sugan yihi hodan cabdiraxmaan tollaani ma hayso cillaanna ma hayso wallaah haddii si qaawan loo wada hadlaya iyo haddii si kale loo wada hadlayaba labadaba loo wada hadlayaa anu run baan nii sheegaya adeer hablaha kale soomaaliyeed ee baraha bulshada lagu caayana waxaan leeyahay dhallinyarada caayasa adeerow ka daaya hablaha cayda
meeshaad joogtaan waa yurub america iyo australia sharci baa ka jira qof sawirkiisa inaad facebooka soo dhigtid wallahi waxaad ku mutaysan kartaa 25 sano xadhiga maha afrika iyo meeshii xeerta jabkiyo reerkiyo in kuwa reer hebel soo daayeeyo in kuwa sidana soo daay loodhanay ma haadir waa yurub way meeshani personal attack wax la yiraahdo lama ogola facebooka inaad qof waliba sharaftiisa iyo samcadiisa aad kaga ridid gabadhaas waa gabadh faamosa ku darso oo aan Soomaaliyo dhan aan ka adeer ma faantay iyadoo faamosa oo waliba Soomaaliyo dhan ay ka ruuhantii aan ka inaad halka la soo fadhiisatid oo caydid bal waxa ku galiyay iyo badaha waxa ku geeyay ayaad sheegi doontaa adeer كل أنا جو هذا كان كيرا ويقصون نقولنا وأنا سكيل علينا لكن لأن هذا كلام ودينيا وحي عيّة يفلق هذا أنا كنت لحتاج ماي والجوي من يود قصل الساعة وين كا يقول قرنت هاي إن كان نعس كا يقول قرنت هاي محليلة هاوينو والجوي من يد عود دون سعتها صدق ذي فيديونا والله هي يوروب شرعي جا قال قبرية ليبيا تصمرتي وتصو عررتي dhaqaalaha kugu soo baxay hooyada iyo aabaha baa ku soo dirsaday balanbal iyo hoog baad soo martay aayar baad umada soo aflagaadinaysaa waa lagu marsiinaya waan arki doonaa bal waan arki doonaa waxaan uga baxayaa wixii kale aflagaada na dhalinyaro gadhba la tusaaye rag baan ni tusanaa iyaguna halkaasi aflagaadadii waxa ka sii wada intaas ku soo gabeynaya adeeranu nin weyn baan ahay aad baan ni salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh